iyadoo lagu jiro xilli kaliileedkii ugu kululaa jiilaalka ayaa waxa qaylo dhaan ba'an oo biyo la'aaneed ka soo yeedhaysa qaar ka mid ah deegaanada koonfurta magaalada Gabiley. Deegaanadani qaylo dhaanta ba'an ee biyo la'aantii ka soo yeedhayso ayaa waxa ka mid ah deegaanka Laaya, Gaashaamo iyo deegaanka Odax. aan ku horeeyay deegaanka Laaya. dadka deegaankaasi Laaya ayaa sheegay in deegaankani ka jirto bacad iyo kulayl badan isla markaana baahidooda ugu darani ay tahay biyo la'aan maadaama lagu jiro xilli kaliileed oo aad u kulul oo jiilaalku daba dheeraaday. anigoo ah Caaqil Axmed Cabdirashiid maanta waxaan u baxnay kormeer indhaindhayna bal dadku sida ay hawlahoogu ay yihiin baahida taala. kormeerka maanta aan u baxnay waxaanu soo aragnay wax maanta indhuhu ayna qaban karin hadday dawlad tahay hadday shicib tahay haddii ay tahay dadkii loogu talagalay codka u yaacay wax laga hayaa ma jirto. waxaanu tagnay intaasoo tuulaan marka soo marnaa maanta joogaa waa magaalo Odax. Soomaalidu horay hadal u dhamaysay hadal baa jiray atoor sagaaro abaarna kama kaxeeyo abaahana kama daayo. hadday xukuumadii tahay hadday saddexda xusbi qaran tahay waxay noqdeen atoor abaaha mooyaane wax abaara oo ay ka kaxaynayaan ma jiraan. waxay la yaacayaan cod madhan dadkii codka ay ka doonayeenna waxa xaaladooda ilaahay ba garanaya. waxaanu joognaa tuulada la yiraahdo Laaye waxaanu leenahay oonbaa loo go'ayaa dawladdu aad iyo si dhaga nugul hanoogu soo gurmato. ilaah weyn ee waaxda awood aan ka dalbanayna inuu awaalka inuu soo waraabiyo. waxaasanu sheegaynaa musharaxiin baa jira yaacayo cod doonaya ama maxaafid ka sharaxnaadaan ama mucaarad ka sharaxnaadaan. waxa weey kuwaas qaad bay bixiyaan meelaas yaacayaan. waxa loo baahan maanta dadkii iyo dunyadiiba in biyo baad lagu bixiyo. waa ta koobaad dawladda xukuumadana waxa laga codsanayaa iyadoo waa maamulkii guud ee dadka iyo dalkaba ka madax ahayd. waxaan ku codsanaynaa in si dhow oo caaqibo la dadka wax loola soo gaaro. waa biyo baad waa kala maarmaan dadku imika way habeen qadaame biyo dadka barkii booyadii dadku iibsanayeen ka shilin kala ma helayo. marka waxaan ku codsanaynaa in dadka si sharaf leh loo soo gaaro oo dad iyo dunyaba la badbaadiyo. cod heli maayaan de musharaxiinta yaacayday dadka oo soo gurma waayaan. waxaan ka hadlayaa baahida joogta ee biyo la'aaneed ee kulayl ee abaareed. biyo la'aan baa arlada ka taagan adag bakti baa lagu yahay. waxaanu doonaynaa dawlad iyo wixii la danaynayaaba inay noo soo gurmadaan biyo lanala soo gaaro. haddii alla yiraahdo musharaxiinta hadday tahay iyo dawlad hadday tahay musharaxiinta waa kuwa aanu waayaaba sugaynay waa kuwa cod laga doonaya diyaarna kolkii hore waan noo hayn. maanta deel haleelba mayno maba jiraba si aanu musharaxiinta ugu codaynaaba haddaan wax nala soo gaadhin nagama helayaan. waar biyaha lanala soo gaadho. halkan maanta waxaanu kaga hadlaynaa baahida ka jirta deegaanka la yiraahdo Laaye. deegaankaasi oo aad u ballaaran baahida maanta biyo la'aan ee haysa iyo calafka xoolaha labada ugu adag maanta dadka haya waa labada. musharaxiintiina intay soo yar baxaan ay yar yaacaan meelaha soo yar marmaraan xaafadaha. maanta waxa weeyaan waqtiga lagu jira waa haadi weey. waqtigii haada loo jiray jiilaalka ayaa lagu jiraa maanta. ilaahay markaas ku naxdaan baad in xariistaa buu quraankiisa ku cadiyay. markaa maanta wixii la isku taraa waa wax aakhira iyo adduunyadaba qofka abaal xagga ilaahay buu ku helayaa. abaalka xagga ilaahay ayuu ku helayaa maanta. iminka waanu aad baanu u cadilanahay biyo la'aan baad la'aan xilligii ma ugu xumayd ee la yiraahdo shimbirta dhalaalkeeda dubata ayaanu taagano de balgeedkaan hoos joogo ayaa ka mid ah dhirtii shimbiruhuba waxay ku noolaayeen dhirta maalin walba raqdood way soo daadataa. sidoo kale dadka deegaanka Odax ayay ka soo yeedhaysaa qaylo dhaan biyo la'aaneed oo baahsan. dadka deegaanka Odax ayaa sheegay inay tahay baahidooda ugu darani waqti xaadirkani biyo. maanta abaarahan lagu jirana horta cidda saari karta horta waa Alle. ilaahay baan leenahay horta raxmadaada noo fur. abaarta dhulka ka taagana way kaasoo indhihiina aad ku arkaysaan. dad iyo dunyaba maanta waxay qaadaan lama hayo. biyuhu waa noloshii koobaade wixii biyo la noo heli karo in la soo gaaro
iminka waxaan eegi kari waayey lax yaroo halkan joogtay dambaskay culisay markay wax kala weyday idinkaa arkaya geedkii iyo dhulkii iyo cirkiina isku ekaadeen biyana danyartoo dhan looba kariyaba deegaanka gaashaamo ayaa sidoo kale qaylodhaan biyo la'aaneed oo baahsani ka jirta dadka deegaankani oo baaq dheer diraya ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu degannahay daabiyadda gaashaamo laydhaa dad iyo xoolaba waannu jilicnay biyo ma hayno beeruhu way naga be'een ilaahay unbaa xaaladdayada yaqaan malaha waxaan idhaahnaa malaha kamaba tirsanidin dawladda weli wax socda maannu arag wax taakuliyo caawimo na siiyo waayaha iyaga arkana maannu arag kuwa noogu darani waa biyo halla nala soo gaadha biyo si qayladhaan degdega si degdega biyaha la nala soo gaadho waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case gobonimo TV gobolka Gabiley